Maanta barnaamijkeenu wuxuu ku socdaa oo ku saabsan yahay gabdhaha guursaday ee ragga ajaanibta ah. Gabdhaha Soomaaliyeed ee ragga ajaanibta ah guursaday aan ku soo qaadanaya qaybtan oo aan leeyahay ha noqonina dameer dhaan raacday. Waxaan ula jeedana mahmaahaydaas waxaa waaye ogaada inaad dhaqan laheedeen laakiin aad dhaqaman kale u gasheen. Marka dhaqankiini ha dhaliilina hana ku caayina dadka. Marka taasaa maanta idin ku soo qaadanaya oo idin faahfaahinaya kusoo dhawaada ayaan idin leeyahay. Bismillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Cafiifa iyo mar kale janalkeena Cafiifa Janal. Kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladii waa idin salaamay meel walbo aad joogtaan. Jimca mubaarak ayaa idin leeyahay, jimca kariim. Ilaahay jimcada fadligeeda iyo khayrkeeda hana waafajiyo dhammaanteen. Ilaahayna inteena xanuunsan ha caafiyo. Intii dhimatayna ha u naxariisto. Intii dhibaatooyin kala haystaan Ilaahay ka dulqaado. Dhammaanna Ilaahay ummadda Islaamka ha u gargaaro hana u naxariisto meel walbo aan joogno. Maanta waa barnaamijkeennii talo iyo tusaale. Qaybtiisa aan ku soo qaadanaya dhaqanka Soomaaliyeed. Khaasatan kan familada iyo reeraha labada wada jooga oo aan ku soo qaatay jimcihii hore. Dhaqankeena sida uu ahaa anaga Soomaalida. Kan waxaan ku soo qaadanaya maanta gabdhaha guursaday ragga ajaanibta ah. Magacaas waa magac Soomaalida isla garatay iyaga baxsadeen. Loogu yeero maxay ahayd dadka aan Soomaalida ahayn magacaas. Marka gabdhaha guursaday ragga aan Soomaalida ahayn haddaan iyo madow dhinac walbaba leh. Gabdhahaas in wanaagsan way jirtaa oo wanaag raggu ay guursadeen oo Ilaahay calafka ugu daray kula joogo. Dadkoodana wanaag u haayo oo dhaqankoodii iyo wixii ay u dhasheenba aan dadkoodana ku caynin. Waayo haddaad dadkaaga aad wixii dhaqan iyo hidde iyo ay u lahayn aad ku aflagaadayso ama aad cay uga dhigto waa dameer xumo waa dadnimo xumo. Maadaama adiga aad tahay dadkaas inta fiican waa intaas waa mana sameeyaan inta aan ka aragnay oo maxay ahayd hadaladooda iyo in soo gaareen in badan oo wanaagsanaa jirto gabdhahaas laakiin in badan oo dhaliilo aan caadi ahayn soo jeediyaana jiro oo dadkooda ku aflagaadeynayo oo maxay ahayd iskaga tilmaamayo waxyaalo ayna afku soo qabanin oo qofkii diin lahoo dhaqan wanaagsan leh uu ka xishoonayo. Marka gabdhahaas waxaan leeyahay maxay waxaad dhaqankiini iyo waxaad hidda u laheedeen iyo wixii oo dhan waad ilowdeen mana wanaagsano. Waatan aan u soo qaatay mahmaahida ah dameer dhaan raacday oo ah inaad ummado kale aad u gasheen dhaqaman kale leh. Marka ayagan dhaqamadoodii ayaad kula macaamilaysiin. Taas waa wax jiro waa ku qasbantihiin. Marka tiinina inaad dadka ku caysaan ama aad daliil uga dhigtaan wax wanaagsan ma ahan. Waxyaalaha anaga dhaqan noo soo ahay oo intaas ka qarni lagu soo dhaqmaaye waxaad la isku dhaliilo ma ahan. Waxaad la isku caayana ma ahan. Mana noqon karto ummad walba dhaqan ay leedahay sidii uu yahayba inta ka qaldan iyo inta u saxanba way isku wataan wuxuudi. Laakiin anaga Soomaali waxaan ku sii qaldanahay qoladii aan markaa aragno aan iska saarnaa dhaqankeena kuma adkin. Haddii wax naga qaldan yihiin waa la saxan karaa si degan oo dadnimo ku jirto. Laakiin kaaga cay oo dhaliil ummado kalena ammaan u saar waa wax aad u qaldan. Marka gabdhaha qaar badanaa jiro oo aan damiir lahayn oo sidaa mar walba ula soo taagan inay aflagaadiyaan dadkoodii siiba ragga aflagaaday u soo saaraan waliba ay haddana gabdhihii kalena ay iyagana ay geliyaan waswaas oo intii fududeedba ay iyaga ka daba qaadato waxaasna wax fiican ma ahan. Gabdhahaas marka waxaan kula talinayaa idinka dhaqamadiina iyo wixii aad gasheen oo dadkiinaas aad kula nooshihiin xoraa u tihiin. Laakiin kii adinka aad u dhalateen oo maxay ahayd habayaashiin awoowayaashiin hooyooyinkiin lagu soo dhaqmi jiray maba ahanba inaa afkiina aad inta soo marisaan hadda aad dadku ku caysaan wax fiicanna ma ahan. Tan aan u soo noqdo marka dhaqanka aad adinku u gasheen ummadahan kaloo aad guursateen waxyaalahan aad amaanta aad uga dhigaysiin oo aad leedihiin sidaas sidaas ay noo sameeyaan oo xaggay wax nooga qabtaan
wax ay ayaga ay wax dhaqan waa dhaqan ay u tahay. Marka waxyaalahaas aad ka aragteen oo aad amaanta uga dhigaysaan waa wax ayaga ay dhaqan ay u tahay oo ay waqti dheer ay kusoo dhaqmaayeen oo ayaga idinka aad aragteen in wanaagsan aad kasoo qaadateen oo idinla fiican oo idinka idin anfacday laakiin in aan caadi ahayn oo aan wanaagsaneyn waa leeyihiin oo in xun ah. Marka idinka intii hadda idin qancisa unbaad nala wadaagtiin oo ammaan aad uga dhigteen laakiin ayagana waa iskugu jirtaa in wanaagsan in maxay aheeday qaldan in maxay aheeday muslimnimada aysan qabin oo diinteena islaamka aysan ogoleyn intaas buu iskugu jirtaa wayna ku dhaqmaan. Marka waxyaalahaas oo dhan ay leeyihiin ummad walbana isku maaragtay dhaqan ma ahan iyagoo xataa muslim ahaysan isku dhaqan ahayn dadka dhaqanka waa wax si gooni dadka u kala leeyihiin laakiin ummadda islaamka ah diintaas ka dhaxayso oo maxay aheeday dhaqanka diinta ku salana waa mid xushmad iyo xishood ku sala asagana waa gooni. Marka anaga intaas oo dhan aan nagu soo noqoto intaas oo dhan Ilaahay noogu deeqo ee wan leenahay khaasatan ummadda islaamka ummadda Soomaaliyeed dhammaan iba anaga aan dhaqan kale oo gooni u sii leenahay sida ummad walba ay u leedahay. Marka adinka gabdhihiinaan inaad saas u ogaataan waaye inaad maxay dhaqaman kale aad ku dhex jirtiin oo in badan oo dhibaatooyin ay ku qabtaan ay jiraan gabdhaha oo aan aragnay in badan oo ka cabanayso oo ka hadlaayo oo dhibaatooyinka ay kala kulmeen inta Ilaahay u wanaajiyay oo dad maxay aheeday bini'aadanimada islaamnimada isku guursaday oo u shaqaysan way badan yihiin inta maxay aheeday dhibaatooyinka kala kulanta way badan yihiin in ayagana maartay sida hadda gabdhaha aan arko kala colaad muujinayo oo maxay dadkoodii ay ka dhasheen xumaanta u muujinayo way jiraan oo inta yar oo u shaqaysan oo soo bandhigayo oo isku amaanayo ayaga iyo ragoodiba isku amaano wixii adinka xoraa u tihiin laakiin dhaqan xumada iyo waxyaalaha aad dadka u soo jeedinaysaa ummadaha la qaybsanaysaa oo baraha bulshada aad la dhex taagan tihiin wax walba daawanayo meesha dhalinyaradii waxyaalahaas oo dhan aad ku jahwareerinaysiin ku dhaqan wareerinaysiin wax fiicanna ma ahan. Marka waxyaalahaas oo kale Ilaahay uga baqa annagana nooga xishooda oo maxay waxyaalaha wax fiican ma aha wax dad kale la qaybsadana ma ahan. Marka gabdhaas amaanta taasaan la qaybsanayaa oo aan leeyahay wixii idinka idin anfacay sidiina ku haysta halkiina ku haysta. Marka idinkan dadkiina wanaag u muujiya waxyaalahan kale oo annagana la dhaliilo iyo maxay waana la cunsuriyaa aad leedihiin waa iska Soomaalida hadalkeeda waa saas waa wax loo dhashay oo ayagii isla ahay dadku wax iska sheego kii wax yar oo maxay aheeday wax ka sii yihiin magac looga dhigaa waa wax idana mar aan waayahan ka hareynin oo maxay aheeday lagu tilmaamo waxyaalahaas ayagana wax dhaqanka laga dhigtay ka mid tahay qofka wax adiga qalad ama ha ahaadaano ama calaamad xataa asaga ka muuqata ha noqoto magac in looga dhigo waa wax idana ay Soomaalidu isla taqaano. Marka wax idinka kaliya la idinku yeelay ma ahan oo tii ajnabiga qaba in la idin dhaho iyo maxay aheeday gabadhi oo nin hebel iyo Soomaalida dhexdeeda isla taas wax adinka idin go'an ama gooni idin ah ma ahan saas tii iskaga xumaadaan oo wax la isku bartay oo la isku yaqaano. Marka idinkana waa inaad sidaas ogaataan oo aad mar walba waxaad leedihiin anaana la dhibaatiyay aadan u qaadan inay saas tahay dhexdeeda waad ku dhalateen Soomaali waa ogtihiin dhaqamada waa taqaaniin marka wax idinka gooni la idinku geysanayo ma ahan in ama adiga wax ka muuqdo lagugu magacaabo ama ilmaad dhashay wax ka muuqdo lagugu tilmaamo oo familki dhamayba hal cunuga ayaga ay dhaleen magac looga dhigo ama ninki magac looga dhigo ama islaantiyo calaamad wax ka muuqato magac looga dhigo loogu yeero waa wax Soomaalida dhexdeeda isku yaqaanaan. Marka dadkana inay iska daayaan fiicantaas laakiin idana waqtigeeda leedahay waqti qaadanaysaa inta isticmaasha badan waxyaalahaas. Marka adinkana sidaas ula socda dadka qalad ha u fahminina waa dadkiina waadna taqaaniin dhaqankiina marka idinkana dhaqamada aad u gasheen oo in laga xishoodo leh xataa waan arkay gabdho ku faanayo oo in laga xishoodo oo maxay aheeday diintaba aysan qabin dadkooda ku amaanayo laakiin anaga lagama sugaayo ummadda islaamka inay xeelahaas oo kale ku dhaqmaan dadka iyagoo isjecel oo labada qof isjecel oo jecelkooda isu muujiyo akhlaaq haddana meesha jirto oo in la ilaaliyo u baahan oo haddii guri la leeyahay
haddii ubad la leeyahay, haddii dad asxaaba jiraan, waxyaalo dadka kala xadida ayaa jiro oo maxay ahayd akhlaaq ah oo aysan diinta islaamka aysan noo banaynin. waxyaalahaas oo dhan anaga dhaqan noo ah oo la xeeriyaa. marka waa inaad saas u ogaataan oo aadan raadinin oo aad ka suginin hadda dadka in laydinkuma la qaada maxay ahayd bulshada horteeda, maxay ahayd ciyaalka hortooda, maxay ahayd banaanada, suuqyada, waxyaalo diinta ka baxsanaa jiro oo aan la wanaagsaneyn in la sameeyo. marka waxyaalahaas aad idinka ka rabtaan meesha, waxyaalahaasna dadkan dhaqan uma ahan. dadkan ay dhaqanka u yihiin waa dad kusoo dhaqmay meel walba la taagnaay, aanan ka xishoo jirno kii xataa hadda dhow soo islaamay uu waalidkiisa uu kusoo dhaqmi jiray, bulshadiisa uu ku dhex jiray kusoo dhaqmi jireen. marka wax intaa lasoo waday asaga ceeb lama ahan, xishood ma dareemayo. marka anaga waxyaalihii dhan oo la qarsanayo eeday loogu talagalay arrimo hoose oo familkan iyo gurigooda ku wanaagsanaay ma aha in suuqyada lala taagnaado. diinteennana nooma ogola anaga. waa ina saas aad u ogaataan. ayaga waxa u furaya ama u ogolaysiinaya ama u fasaxaya in waxyaalahaas ay muujiyaan ama aad ka aragtiin waa dhaqan ahaanay u noqotay muddo kusoo dhaqmayeen. marka sidaa inaa ula socotaan aan rabaa dhammaantiin. inta kaloo ayadana maseerku ku jiro isla ragga ajnabiga ah, ragga soomaalida ka fiican ayagana waa inay saa ula socdaan oo la isu miisaamo labada dhaqan oo aan la iska carcararin. insha allah maantana barnaamijkeeni intaasaan kusoo gabagabeynayaa. qaybta saddexaadna waxaan ula soo noqonayaa familada soomaalida, inkastoo aan rabaa ayagana ragga aan sii xasuusinaya siiba ragga qaybta saddexaad insha allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.